سمي هستس وهاس ليلة بولي لحن كذا داربتنا مقشين كلام مقشين تمام ما ضبك سعره نينك بولي عناية بين كتاب نينك بولي عناية بين كتاب فبعاد ميدبا الله بجاري fanaanada nimcadareen ayaa lagu qabtay hees ay horay u qaaday oo ay sheegtay inay iyadu leedahay isla markaana uu laxankeeda iyo erayadaba uu sameeyay qof ku sugan magaalada Muqdisho. heestan oo la qaaday muddo dheer ka hor ayaa hadda soo shaacabaxday inaysan lahayn fanaanada nimcadareen oo waraysi ka qaaday ilaha u naxariistay wariyihii weynaa ee dhintay Axmed Xasan Cawke oo ku dhintay magaalada Jigjiga. heestan dhawaan la helay ayaa waxaa sheegtay fanaanad kale oo hore u qaaday 1985 balse daawadayaal intaana u gudagelin barnaamijka oo faahfaahsan halkani waa Galaangal Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambalelkan ha iska hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya dhageysta barnaamijyadeena iyo xogaha aan baahino. oo ku maasan tahay daawashadaada. fadlan muuqaalka dug soo gaara si shargare like iyo commentiga waxa aragtay hoos noogu reeb. haddaba waxaan gudageli doonaa heestaasi ay nimcadareen horay u qaaday isla markaana dhawaan la helay fanaanadii qaaday oo ay wareysatay idaacadda laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. heesta nin booli cunay oo ay ku luuqeyda fanaanada nimcadareen ayaa horay waxa uu qaaday Marwo Cabdi 1983. heestan oo ay ku soo caanbaxday fanaanada nimcadareen ayaa hadda waxaa la helay inaysan nimcadareen heestan aysan lahayn sida aad ku daawo doontaan muuqaalka qaybihiisa dambe ama dhexe. nimcadareen ayaa sheegtay in fanaanada heestan ama fanaanka u sameeyay heestan oo ku sugan yahay magaalada Muqdisho isla markaana ay magac kale u bixisay ay sidoo kalena ka been abuurtay nimcadareen heestaasi. waraysigan uu qaaday ilaha u naxariistay Axmed Xasan Cawke oo dhintay dhowr sano ka hor. haddaba heestan ayaa waxaa qaada fanaanada lagu magacaabo Marwo Cabdi waxaana la qaaday 1983 sida ay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ay u xaqiijisay fanaanadaasi. waatan fanaanada oo ka faaloonaysa sida heestaasi loo qaaday iyo cidda sameysay erayadeeda ama laxankeeda intaba. waxaad ku daawo doontaan barnaamijka sidoo kale nimcadareen oo magaalada Nairobi laga tuura masraxa horaantii sanadyo badan laga soo wareegay iyadoo sidoo kale nimcadareen la sheegay in hadda qofka ka tuuray masraxa uu ku calool xumoodo sida ay heestaasi ugu ciyaartay iyadoo fanaanada heesta iskale sidoo kale ay sheegtay in nimcadareen ay heestaasi si qaldan u qaaday erayadeeda iyo laxankana ay sidoo kale ku tumatay. waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka hadda ku soo dhawaada Marwo Cabdi oo heestaasi ka hadlaysa iyo waraysigii ay siisay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da oo ay ku taabanayso qodobo badan oo quseeya nimcadareen iyo fadeexada soo wajahday heestan. waa heesta koobaad aad ku leedahay waatay adiga sida gaarka ku soo jiidata ninka booli cunay ee been kitaab heesta la yiraahdo. haye yaa sameeyay erayada waxay iskale Xasan Xaaji Cabdullaahi Xaaji Xasan laxankana Allah u naxariistay waxaa sameeyay ninka la yiraahdo Axmed Kacayte. goorma la sameeyay heestan ninka booli cunay 83 waa muddo aad u fog 20 sano ka hor. laakiin Marwo haddaad ka warhayso iyo haddii kale kulay fanaaniintu iska warhayaane inta badan heestan haddaad carabka ku dhufatay sidaad sheegtayna ahba heestaadi koobaad ee aad ku leedahay heesaha ay safka koobaad kugu jirta. inta badan waxaa dadku aad ugu yaqaanaan mid ka mid ah fanaaniinta da'da yar ee waayadan dambe fanka ku soo biirtay. aad baan uga xumahay gabadhaasi midhaha hataa heesta aad u baadisay. heesta qofku intuu fanaanku qaado midhaheedii wixii la toosiyaa moogtahay hataa midhaha way baadisay. ninka booli cunay oo been kitaab say u qaaday si oo mucjiso weeye oo maxay midhihii ay ku tumatay. marka aad baan uga xumahay inay maxay midhaha dad leeyahay inay saa u jijiido. ninka booli cunay been kitaab فبعاد ميدبا الله بجاري ninka booli cunay been kitaab فبعاد ميدبا الله بجاري inuu baahayahay midhaha iyo erayada waxa iskale wiil Cabdillah la yiraahdo. waxaan degan may wadankii Soomaaliya. ha heestaasi aad sheegtay ninka booli cunay ma hees waxay ahayd iska qaaci lagu tumay oo cajiradun la isaga duumay hees waxay ahayd dadku yaqaanaan oo idaacadaha ka bixi jirtay ama riwaayad ba ku jirtay. hees qaaci lagu tumay oo maxay qaaci dadku ku dhageysan jiro aad dadku u jecel yihiin cajiradun aad dadku u jecel yihiin bay kamid ahayd heestaas. marka ma riwaayad baa laga soo dhex saaray mise iskeed baa loo curiyay? maya waxay ahayd may hees caadi ah.
haye bal haddaad qadar noogu dhufato. ninka booli cunaya been kitaab babacaada midig baan laha ku jaray ninka booli cunaya been kitaab babacaada midig baan laha ku jaray inuu baaba yahay u baxar ku jiro waa mid aanu bixin inuu baaba yahay u baxar ku jiro waa mid aanu bixin wasuuisu bogay balse waxaa ka daran beera caashaq degay wasuuisu bogay balse waxaa ka daran beera caashaq degay on baahidu u bukooda helin on baahidu u bukooda helin nafta bahantaye saadaasha been ku baxnaamise nafta bahantaye saadaasha been ku baxnaamise bulshadana ku tiri waataan bogsaday waataan bogsaday. nimco dareen oo sheegtay in heestani uu u sameeyey abwaan ku sugan magaalada muqdisho ayaa hadda waxay noqotay heestani mid aad iyo aad wejigabax ugu noqotay fanaanada oo heestani xaday islamarkaana been abuur ka samaysay cidda u samaystay heesta eryadeeda iyo laxanka. sidoo kale fanaanada iskale heestan marwa cabdi ayaa la hadashay laanta afka soomaaliga ee VOA-da sida aad ku dhagaysateen barnaamijka qeybihiisa hore iyadoo sheegtay in nimco dareen heestani ay ku ciyaartay laxankeeda iyo codka sidoo kalena ereyada ay sabaqaar haynin sida ay sheegtay fanaanada heestan orginaalkeeda iskale ee la qaaday 20 alla dareena heesta horan horta waxay aad uga helaan heesta booli maxaa la yidhaha booli miyaa sameeyey heestaas waa hees la yidhahdo booli laxankeeda haddaad rabtana waa ku maqashiin karaa maqashin maadaba ka saaro ninka booli cunaye been kitaab ninka booli cunaye been kitaab babacaada midig baa laha ku jaray ninka booli cunaye been kitaab babacaada midig baa laha ku jaray inuu booha yahay miraha iyo erayada waxaa iskale wiil cabdillaah la yidhaahdo waxadan degan may wadankii Soomaaliya ha good waa heestaa booli tii kalena maxay ahayd qandho qandhadii ha marka waxaad haysataa wax cusub dareen qandho booli what else maxaa kale ku talagal inaad timaad telefoon waxii ma taree daawadayaal waxaan filayaa inaad si aad uga bogateen heesaha xatooyada ah ay qaaday fanaanada nimcan dareen islamarkaana ay ka been abuuranayso dadkii heesaha iska lahaa islamarkaana sidaad arkaysa inaad ku dhagaysateen barnaamijkeena inta uu socday oo aad ku mahadsan tahay daawashadaada iyo sidaad ugu tixan tahay barnaamijkeena halkani waa galaangal media fadlan haddii aad ku cusub tahay mar kalena taa markii kugu horeysay channelka subscribe saaro calaamada gambalaalkana iska hilmaamin sidoo kale
hanaga hilmaama inaad muuqaalkan sii faafiso lana wadaagto saaxiibada wixii commenti aragtiyana hoos aan ugu soo reebto leegta iyo shaartana hanaga hilmaamin oo ku maasantahay daawashadaad halkani waa Galaangal Media.